Kenya oo weynaysa jasiiradda quruxda badan ee badda Lamu haddii Soomaaliya dacwadda badda ku guuleysato iyo Kenya oo cabsi soo wajahday. Jasiiradda Lamu waa xeeb dalxiis oo ku taalla xuduud badeedka ay wadaagaan labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya. Kenya ay way doontaa haddii Soomaaliya ay kaga guuleysato dacwadda badda ee kala dhaxaysa. Warbaahinta Kenya ayaa sheegtay in cabsi xoog leh soo wajahday kalluumaysayaasha iyo dadka dalxiiska ka shaqeysta ee Kenya, kuwaas oo cabsi ka qaba in Soomaaliya loo xukumo meelo muhiim ah oo ay ku jirto jasiiradda Lamu. Dowladda Kenya oo marmarsiyo badan sameysay ayaa waxa ay diiday in ay xaadirto maxkamadda ICJ si loo dhageysto dacwadda badda. Waxa ayna sheegtay in ay dacwadda u gudbin doonto Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay. sida warqad ka soo baxday xeeralyaha guud ee waddanka Kenya lagu sheegay. Waxa ay dowladda Kenya doonaysaa in ay dacwadda badda ee kala dhaxaysa Soomaaliya ay u weeciso dhanka Qaramada Midoobay, halka Soomaaliya ay doonayso in dacwadda badda lagu soo gabagabeeyo Maxkamadda Cadaaladda Adduunka ee ICJ ee magaalada Hague.